war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Somaliland oo ku qoran luqadda Ingiriisiga ayaa waxaa si adag loogu cambaareeyay baaqyada faragelinta ciidan ee shisheeye ee Soomaaliya ay ku baaqday. war-saxaafadeedka ayaa waxa uu dhignaa sida tan: dowladda Jamhuuriyadda Somaliland oo ay ka wakiil tahay wasaaradda gaashaandhiggu waxay si weyn u cambaareynayaa hadallada loo aaneynayo wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi, kaasoo sida la soo wariyay ugu baaqay boqortooyada Sacuudiga in ay faragelin ciidan ku samayso Somaliland. hadallada noocani waa kuwo halis ah oo jid u bixin kara faragelin ciidan oo shisheeye ama dabadeed, sida uu dhigayo sharciga caalamiga gaar ahaan qodobka 2 faqradiisa 4 ee axdiga qaramada midoobay. waxaa gebi ahaanba reeban in lagu hanjabo ama la adeegsado awood ciidan oo ka dhana madax bannaanida siyaasadeed ama dhuleed ee ummad kale. in si cad loogu baaqo tallaabo ciidan oo ka dhana Somaliland oo ah dal iskii isu maamula kuna caana nabad waa xadgudub iyo sharci jabin culus oo ka dhana shuruucda caalamiga isla markaasna khatar gelinaysa nabadda iyo xasiloonida gobolka. baaqan gardarada ahi ma aha oo keliya mid khatar ku ah Somaliland, balse waxa uu halis gelinayaa guud ahaanba gobolka Geeska Afrika oo wajahaya caqabado amni oo adag. nasiib darro tani ma aha hal dhacdo oo keliya. wasiir Fiqi waxa uu marar badan muujiyay nacayb iyo hadallo colaad hurinaya oo ka dhana Somaliland, isagoo xataa fagaarayaal caalamiga ka jeediyay hadallo kicin iyo isku dira kuwaasoo dhaawacaya fursadaha lagu xaqiijin karo wada noolaansho nabadeed. hanjabaadda noocani waxay dib u xusuusinaysaa dadka reer Somaliland waayihii madooba ee xukunkii Siyaad Barre, xilligaas oo ay socdeen tacadiyo baahsan oo sababay dil iyo barakac ballaadhan oo ku dhacay boqolaal kun oo muwaadiniin Somaliland dabayaaqadii sanadkii 1980-yadii, kuwaas oo ay garab siinayeen xoogag shisheeye. xusuusta murugada weli waxay ku duugan tahay qalbiyada ummadda, sidaas awgeed hadal kasta oo cusub oo nuxurkiisu uu yahay ku baaqis faragelin ciidan waa mid aad u halisa oo aan mas'uuliyad ku dhisnayn. waxaanu si adag oo aan mugdi ku jirin u cadaynaynaa madax bannaanida, midnimada dhuleed iyo amniga Somaliland midna ma aha kuwa lagu gorgortami karo. isku day kasta ha ahaato mid toos ah ama mid dadban oo lagu abaabulayo ama lagu fududaynayo gardarro ciidan oo ka dhana Somaliland, waxaanu kaga jawaabi doonaa si adag oo sharciga waafaqsan annagoo difaacayna shacabkayaga iyo qarankayaga. sidaas daraaddeed wasaaradda gaashaandhiggu waxay si kulul u cambaareynaysaa hadallada colaadda hurinaya. waxaanu ugu baaqaynaa dowladda Soomaaliya iyo wasiir Fiqi inay si degdeg ah uga laabtaan hajabaad kasta oo ka dhana Somaliland. sidoo kale waxaanu ka codsanaynaa beesha caalamka, dalalka gobolka iyo saaxiibada caalamigaaba inay si cad u cambaareeyaan hadallada aan mas'uuliyadda lahayn, isla markaasna ay garab istaagaan mabaadi'da nabadda iyo ka hortagidda gardarrada iyo ixtiraamka rabitaanka iyo amniga shucuubta. Somaliland waxaa mar walba ka go'an nabad, iskaashi goboleed iyo wada noolaansho derisnimo oo wanaagsan.